بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ugu horeyn waa idin mahadnaqaya idinka iyo bahdan soo diyaarisay dariskanba waa marka labaad cinwaankan su'aal ahaanta loo dhigay ee waa kuma aqoon-yahanku waa su'aal aan fududayn in laga jawaabo waayo waxay isweydiinta leh waxay tahay aqoontu waa maxay kadib baynu isweydiinaynaa yaa aqoon-yahana kadib baynu isweydiin doonaa aqoon-yahanka aynu innagu u baahanay waa kuma kaalintaase uu bulshadeenna ku leeyahay maxay tahay su-aasha koowaad ee aqoon العلم maxaa cilmiya waa su'aal aad u qadiima waa su'aal da'weyn oo aadanuhu muddo aad u badan doodeeda uu ku jiray sidaa awgeed baa furuucda falsafadda aynu naqaano lacallaha inay tahayba farca ugu culus oo farca epistemology epistemology-gu waa almacrifa waa alcilm waxaanu ka warramayaa maxaa aqoona sidee aqoon lagu gaadhaa bale su'aalo kaba adag oo wax ma la aqoonsan karaa mise waynu riyoonaynaa aadanuhu xaqiiqada ma gaadhi karaa mise wuu ismoodsiiyaa waa su'aal aad u da'weyn runtii sida awgeed ayaa falaasafadii hore iyo kutubulfalsafa dhammaantood way ka hadlaan su'aalna haddii lagu yidhaahdo waa su'aal falsafiya jawaab falsafiyi ma jirtaba waayo lacalla waxaa laga yaabaa inta madaaris fikriya ama school of thoughts dunida soo martay mid waliba jawaab bay ka leedahay bale lacalla inaad is odhan karto mararka qaarkood mala filosof kastaaba ra'yu ka leeyihi waayo falaasafadu waxay wadaagaan mushkiladda laakiin xalka ma wadaagaan jawaabta ma wadaagaan ee waxay wadaagaan mushkiladda iyo soo bandhiggeeda waana su'aal ilaa hadda dadka wax qoraa weli ay ku foogan yihiin siday uga jawaabi lahaayeen xataa waxaa laga yaabaa furuucda cilmiga ee baxtigaa rag wax ka qoray oo weli su-aashani ku taagantay inaad arki doonto maalan Ernest Mayr This is Biology, the Science of Living World buuggiisa la yidhaahdo fasal baa ku jira ama chapter uu kaga warramayo su-aashatan waxaa la mida Ronald Omnes quantum philosophy waa quantum buu ka hadlaya quantum mechanics chapter baa ku jira buuggiisa uu kaga warramayo mal cilm ama maxaa aqoona markaynu eegno David Zarnik oo ustaad culuum insaaniya social science buuggiisa akhlaaqiyat alcilmi la yidhaahdo chapter baa ku jira uu kaga warramayo mal cilm kuwan aan soo qaatay ma aha dadkii hore waa qarniga 21aad kuwa wax qoray hadda qarnigii 20aadna maaha waa qarniga 21aad ayaa weli akademigu isku dayaya su-aasha inuu dib u soo celiyo walidalik aadanuhu sidiisaba haddii la sifeeyo mala waxa la odhan karaa waa albaaxith can alxaqiiqa waa raadiyaha ama cidda raadcaysa xaqiiqada inuu gaadho سواء هالنقطة ontology أما الحقيقة الوجودية جريتانك metaphysics ما وراء الطبيعة
beyond the nature waxaanaynu aragna maxaa ka dambeeya oo markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo jiritaankiisa iyo wixii ku saabsan ay kaga warramaan ama physics-ka laftiisaba haato metaha intaynu ka tagno oo ah abiica nature-ka inaynu raadacayno oo culumtan scienceska aad taqaaniin oo dhammi ay ku jirto raadcada nature-ka iyo xaqaa'iqdiisa inay wax ku ogaato ama ahaato faraca kale falsafiga ee ku saabsan ethicska alakhlaaqiyaat alqiyam maxaa khayra maxaa shara maxaa san maxaa xun waa farac ka mid ah furuuci alfalsafa amase ha ahaato faracan ku saabsan aestheticska ama aljamaaliyaat beautyga maxaa quruxa kuwa baadiya waa qoladana u taqaaniin fanka iyo muusiqada iyo aartka iyo naxtiga iyo suugaamaha iyo waxaan oo dhammi suurad bay rabaan inay kuu sawiraan qurux la yidhaahdo waxa ay falsafadi baadhaysoo dhan ee xaqaa'iqda ay ku tilmaamayso ayi xaqiiqa raadinteed ayaa epistemology-gu ka warramaa ama cilmigu ka warramaa ama macrifadu ka warrantaa aqoontu ka warrantaa walacalla haddaynu islaamka eegno aragtiyaha tirada badan lee nadariyat almacrifa waxaa laga yaabaa inuu ugu dhadhow yahay nadariyada macrifada ee maxay almutaabaqa la yidhaahdo oo ah waa qowlka ama tasawurka yacni suuraynta ama weedha waafaqsan waaqaca xaqiiqada waafaqsan ayaa cilmiya haddaba su-aasha inaynu ka jawaabnaa su-aal fudud maaha aadanuhuna horuu ugu daalay haddii markaa tidhaahdo aqoontuba way adagtay in laga jawaabo insaanku waa xaqiiqa raadis su-aasha isweydiinta lee ka dhadhowi mala waxa weeyaan sidee aqoon loo heli karaa ama maxaa maraajic masaadir halkee aqoontu ay jirtaa laga raadceeyaa ama kayfa natacallam inaynu markaa raadcayno aqoontu inay masderna leeday wasiilo na leeday manhajna leeday saddexdaa eray u fiirso mid waa masder waa marjac waa meel loogu noqdo كمسلمين هان وحل الرميسي مصدر العلم إنه يهي الكون والوحي يونيفرس كان يكون والله دمانتي إيه وحيجة والله بدأ سواء محي مدوا خلق الله أو مفعولاته إلهي وحي وأبو ري وسميي برشاديسة midna waxa weeyaan waxyigii xagga rabbi ka yimi ee aqoon ee rabbi soo diray labada shay waa marjac fi shariica la rumaysan yahay inuu yahay maxay aqoonta meesha laga raadceeyo waxna waa wasaa'il aalaadka loo adeegsado aqoonta baadidoonkeeda oo alxis walcaql alxis والعقل دغه هي indhaha iyo waxaan xiska xawaasta loo yaqaano iyo maanka ama garaadka ama aqliga وإلهي قرآنك wuxuu ku tilmaamaya والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي caloosha hooyooyinkiin buu idinka soo saaray idinku aan waxba garanaynin وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وحيدين يلي أدواتك وحبرشو وحلقوا برطه سيدا وجد وحكستو الدليل لوجه له قضية كونية أما الدليل لوجه له وحي جسمد كيمي ومعرفة ما هو علم ينور كره هدي اللي بدأ الدليل لوجه وينا وخرافة
سوقت بإله القرآن وحكوت المامية قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله كورم بإله إليه سبحانه وتعالى شركاءكم الذين تدعون من دون الله عندنا عابد سان إله السكدي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إلهي وحلي الدليل كونك ككانا عركن يدلكن يوحن شريني وحكوليين دليل كصابسن كان أما ما هي مد وحيية وحق الرب كيمي كان لبدا هدا مدنا ويدان با إلهي لهي بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا وحك لا يسقوا الرميسان وكدين يبين با إلهي تلماما يوحنا بماها سيدا وقيت وحين لنا هي مرجع أما ماشي أقول لو نقضى والوحي يا الكون أما كتاب الله المقروء هي كتاب الله المنظور أقولت آدمه بارو أردميون وأبور كم وحكم دول أجادي سيدو شقيه هدين وحكوكر لنا وحين نسكدينا وحاس سيدو شقينا ينين نقلدنه إنه نقض ينه all technology وتقليد للطبيعة بين هذا وحكستو scientific كل أجاده وقاعدة أما ولو كمدا قوانين تكون كانوا يقصعده أيد وحكسو أجاتي دبتنا يسقط سكود يسينا دبوا استعماشه سيادتنا وحسب يسين كرتيد هذا بقى وسيلة اللي يسوق قد بياسه مهمة وسائل كقاركود دتكو معرفة كرادية شرع دويديدي فالك يا سحر كيو ريوين ك وحاسكا أن أدلة دبا هيني ما ها أدلة كونك علمك يا الله أما كتابك علمك كشرا وحكا كينا هذا وحين لنا هاي أقونتو هداي كاتهاي أقون يهن كواكما أرينا نفس مالك أقون يهنا كي أقون طلها ملا اللغات كوحكو دقتان أريب بدن ومعنى يوجد وحود حيان باكر لكن أنا قد ما أنت هذا إنه كتر جنو أقون يهن مثلا قفكني وأكاديميك وسكولر وlearned person وقف knowledgeable وأريادة تراد بدن وintellectual أريادة تراد بدن للغة الإنجليزية لا شيء أنتوا ده بدن وحلقية بين إنه نقول كفاسرين وياهي أقوى يهن مرر كقاركود أريادي أنتي في الصومال قالوا قرية لسوق كردية وحكم دها intellectual people كواحد هو إندير قرط إندير أيو قرنايا وفنا إندو بو قرنايا منا محي إندير بو قرنايا وريادي مركي دنبه terminology اللي سوكر دي إندير قرط يا قويها بني آدم أنا قويها هيني ميوتشره I don't believe دات سيدا وتدا ضيارة سيدا واسع عايز شاكتو مقفانا قون لهين باكره هيراتا هسبدناتو ninka reer miyiga ee geela haysta waa aqoonyahan geeleed ilaa xad soo maaha wuxuu yaqaanaa geeliisa sida loo maalo sida loo arooriyo sida loo xaraysto sida loo daajiyo sida yani wax badan oo idinku aydan suurayn karin oo cilmiyo haya ilaa xad wuxuu bartay geela marka la lisayo hadhuubka xagee lagala galaa mahaaneedka mise miskeedka هانيتك مسكيت كما تغني حروبك نينك جيل لسيا ما كدنك بدح كجا جرا حروبك لو ديبا هاشم بدح ديدا تاغن بس كميدك تيدا تاغن با لو ديبا بس ميد والبا لو ديبي كرا مايا جيل جروه ميد قدو ديبا وانو في سنغرينيا
labada ninba hadhuubka ma wada qabtaan geela ma taqaanin meel la yidhaahdo gorofleged halkan yara kuusan hasha adinkeeda gorofleged baa la yidhaahdaa gorofku waa hadhuubkay legedaa weeyaan hadhuubkay tuurtaa neefka geela iyadoo la lisayo ayuu iska dhaqaaqaa markuu doono hadduu dhaqaaqana gorofku kaaga dhufanayaa dee goroflegedkiisa gorofleged ba waxa loogu bixiyey dee gorofku legdaa idan waxa loo dhiibaa ninka midigtiisu ay dambeedka lisayso ee hashu markay istiraahdo soo dhaqaaq hadhuubku kanuu saaran yahay kala wareegi karaa hadduu adinkan ku hayo markay dhaqaaqdaba way ku dhufanaysaa laakiin hadduu adinka kale ku hayo distance baa u dhaxeeya uu dareemi karo hashu inay soo socoto oo gorofkiisa ka duwi karo idan waa cilmi waa aqoon uu bartay hasha hadhuubka xagga laga galayo idan waa aqoon-yahan laakiin wakhtigan dambe waxaad moodaa aqoonta dadka badh inay ku soo koobeen intan schooling systemka lagu qaato scholarka kuwan la yidhaahdo maalan ninka waayeelka ee boqolka sano soo jiray ee waayo aragga ee tajribo wax badan ku soo helay miyaan la odhan karin waa aqoon-yahan nololeed nolosha wax badan buu ka ogaaday haddaba haddii aynu nidhaahno wuxuu waa terminology ee literally ha u macnaynin yacni erayga af ahaanun ha isaga macnaynin haddaad tidhaahdo ee waa inuu yeeshaa macno maxay mustalaxa terminologya oo bini aadamka akademiga ama aqoon-yahanka qolada sheegatay isla garatay waa qof kasta oo aqoontiisu ay ku salaysan tahay labadaa masdar ee aynu sheegnay ee imaa waxyiga kitaab wa sunna ama ah kownkaasi barashadiisa ay ku salaysantahay una maray طرق علمiga ee la yaqiinsan yahay ama la rumaysan yahay oo wasiiladu adeegsaday ay tahay ima alxisu wa ima alcaql wasiiladu adeegsadayna ay tahay inuu caqliga isticmaalay ama se inuu isticmaalay maxay xawaasta uu isticmaalay dabeetana can طariiqi اlmulaaxada watajriba iyo wixii la halmaala observation wallada saynisku maxaa tidhahdaan waa mulaaxadaat observations baa la sameeyaa daahira muuqata waa la observe gareeyaa kadib hypothesis baa loo sameeyaa kadib waa la tajribeeyaa kadib scientific law ama wax qaanuun nadariyad baa la keenaa kadibna beberka akademiga baa lagu qoraa kadibna falsification test bay martaa marka ama waa la naqdiyaa ama way sugantaa wax sugan oo aragti cilmiya bay noqotaa ama waa la naqdiyaa haddaba aqoon-yahanka aynu rabno inagu waxaan leenahay waa inuu ugu yaraan laba hal haystaa waa inuu leeyahay kayd aqooneed qaabkuu doonaha ku soo helo kayd aqooneed waa inuu qofkani sidaa ka labaadna waxaanu leenahay waa inuu xis naqdiya leeyahay critical waa inaanu weel lagu shubay wax ahayne wax naqdin kara waa inuu yahay haddii aqoon-yahanku uu ahaan lahaa weel wax lagu shubay haan la buuxiyey dee cd-yada iyo dvd-yada aqoon-yahan noqon lahaa soo maaha hadii laga buuxiyo waxa kale ama combyuutarka marka waxa lagu guro aqoon-yahan buu noqon lahaa aqoon-yahankaan rabnaa ee bini aadamka ahi waa inuu noqdaa maxay qof kayd aqoomeed leh xis naqdiyaana leh wax naqdin kara wax duri kara waxaan uu sito af soomaaliga maxaynu odhan karnaa wax hufi kara dheh hufidda sooma taqaaniin waxaan la cunay ee baalka leh dhaqankii soomaaliga marka la tumo maxaa la samayn jiray si loo kala saaro buushaha iyo lubbi shayga midhihiisii rasmiga ee la rabay inta la tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna masafta lagu shubaa dabeetana waa la hufaa waa la haadiyaa
aqoonyahanku markaa waa inuu noqdaa qof kayd cilmiyeed leh mar labaadna wax xufi kara haan la buuxiyey aan ahayne qof wax xufi kara oo wax naqdin kara oo waxaan waxasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa walidalik aqoonyahanku kaydka cilmiyeed aan ka rabnaa kow markaan inagu dad muslimiina nahay kow waa inuu garanayaa akbar xaqiiqa iyo waxa uu waajibay xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu daliil badan waa ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo jiritaankiisa fi shariica qofka taa garan waaya aqoonyahan qur-aanku uma rumaysna inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulul albaab ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclam kii garanaya wixii nebi maxamedow kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuu xaq yahay kaman huwa acmaa ka indhaala miyuu la mid yahay indhuhu waa wasaayishii ugu fiicnaaya maxay cilmiga lagu baranayay cilmi daaya wuxuu leeyahay wasiiladii lagu gaari lahaa buu qur-aanku saanu tilmaamaya kaman huwa acmaa inamaa yatadakkar ulul albaab idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxay leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoonyahan noqon maayo waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa saasi daraaddeed aqoonyahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyeed xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan ama taa kowniga ee naajaralka ah ilaahay sameeyey ama taa waxyiga uu soo dejiyey xambaarsan xis naqdiya ana leh critical wax naqdin kara wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin wax hubin kara wax xufi kara wax haadin kara ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoonyahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato oo aanad nolosha dowr ku lahayn qiimo ma leh waa ka ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kamahali اlkalb in taxmil calayhi yalhath aw tatruku yalhath sidii ey buu la mid yahay baa la yidhi eyga waxaa isku mid ah haddaad erido iyo haddaad iska dayso eygu wuu haraariyoodaa labadaba socaynkaa maa haraaryada ma taqaanin carabka markuu laalaadiya ha yidhaahdo yani xayawaanka kale ee caadada waxaa lagu yaqaanaa markay kulayl dareemaan ama leeriya ama waxay lamid ay haraariyoodaan laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan eyguse isagu labada jeerba maxaa saa loogu matalay waxa weeyaan aqoontu de waa inay isbeddel nololeed keentaa aqoontu waa inay suluugga wax ka beddeshaa waa inay dhaqanka wax ka beddeshaa hadday dhaqanka wax ka beddeli weydo aqoontii la ictiraafayey maaha aqoon qiimo samaynaysa maaha waa inay noqotaa aqoon adiga dhaqanka iyo bulshadaad la nooshay dhaqankeedba wax ka beddeli kara haddaba waxaan leenahay aqoonyahanku aan doonaynaa ka muslim ahaan ka umma soomaaliya waa inuu noqdaa qof diinkiisa garanaya aqoonta aadanuhu uu maanta isku hoggaamiye kalena wax ka garanaya bulshadiisana hagi kara markaasi oo waa maxay aqoonyahanku waa dadka sameeya alcaqli alcaami lilumma aragtida guud ee bulshadu ay rumaysan tahay waa inuu noqdaa aqoonyahanka qofka kawinaya samaynaya waa inuu noqdaa aqoonyahanku qofka ilaaliya
ummadda identity-geeda ummad waliba waxay leedahay identity wax lagu garto waxay ku soocan tahay waa inuu baadisooceeda ilaalin karaya waxay leenahay aqoonyahanka aan u baahanna waa inuu noqdaa qof hagi kara bulshada ila alkhayr samaha ku hagi kara waa inuu noqdaa haddaba umamka iyo isbeddelka ka dhaca ummad inuu isbeddel ka dhaco waxay yidhaahdaan waxaa sababa kow in la helo cultural revolution waa in ummadda dhaqankeeda la beddelaa dhaqanka la beddelaa waa maxay waa in la hufaa oo dhaqankaasi wixiisa xun waa in la tuuraa wixiisa sanna waa in la sugaa wixii kale fiicanna waa in lagu daraa sida awgeed ummadaha isbeddel kuma yimaado haddaan waxay rumaysan yihiin wax laga beddelin qaabkay u dhaqmayaanna wax laga beddelin ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dadku waxa ay ku sugan yihiin maa biqowm baa la yidhi in allaha laa yugayir maa biqowm maa biumma dad waxay ku sugan yihiin isma beddelo ilaahay ma beddelo xataa yugayiruu ilaahay ay beddelaan maxay maa bilanfus garaadka iyo caqliga iyo dhaqanka iyo suluugga inay beddelaan mooyaane waxba isma beddelaan sida awgeed ilaahay markuu rusul soo diray rusushu waa aqoonyahanka cidda hoggaamisa waayo absolute value aqoonaba iyagu sidaan toos ay rabbigood ugala kulmeen aan wasiilo tajaarib bini aadanba soo marin ee rabbigood toos uga timi bay xambaarsan yihiin rusushu waxay sameeyaan iyo ambiyadu waa maxay maa bilanfus bay beddelaan dadku siduu u fakerayo iyo waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqankiisay beddelaan kaas marka la beddelay cultural revolutionku uu dhaco ayaa materialka bini aadamkana wax iska beddelaan markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaab science ma sidin looma soo dhiibin tiknolojiyad iyo baabkaa waxaa loo soo dhiibay wax lagu beddelo bini aadamka cuquushiisa iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa wax beddeli kara taa markii la beddelay waxay taasi tilmaamtay waxaan xaq ahayn inaan dadku rumaysan wax kasta inaanu iska rumaysanin aqoontooda wasaa'ishay ku adeegsanayaan ima alxisu aw ilcaqlu inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosnayn waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafo dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan insaanku inuu wax bartaa inay fiican tahay in la rumaysto in cilmigu qadar inuu yeesho waxani waa thaqaafadii culture-kii bini aadamkoo la beddelayo waa muctaqadkii bini aadamkoo la beddelayo wuxuu rumaysnaa qofka bini aadamka ahi waa qaabku u dhaqmayo la beddelayo taasaa waxay dhashay qarni kadib inay dunida aqoontii taallo dhan intay ururiyaan ay hufaan weliba oo waxaanu cuntamayn intay ka tuuraan ay ka dhigaan wax aadanaha wax tara bale sartre george sartre mayaa la odhan jiray ninka ugu caansan history of science ka warrama encyclopediahan shanta buuga leh qurniyo dhan oo centuries bini aadamka soo maray buu wuxuu astaan uga dhigayaa aqoon-yahano muslima buu leeyahy waa centurygii kontonkii sanaba nin buu ku calaamadiyey ka mid ah aqoon-yahanadii muslimiinta soo maray laakiin aqoon-yahanadani goormay samaysmeen waxay samaysmeen cultural revolution markuu dhacay markii ummaddu siday u fakeraysay iyo waxay rumaysnayd wax laga beddelay ayaa waxaa soo baxay materialkii bini aadamku u baahnaana dad raadceeyey oo aqoon wixii Greek u hayay wixii Indiya yaalay wixii China yaalay wixii caalamka yaallo dhan intay soo naqliyeen
ayay hufeen oo qaybo badan muslimiintu way ka tageen sanamada iyo sida loo qorqoro iyo muusiqaadkoodii iyo wixii la mid waxaasoo dhan way tuureen khuraafaadka wixii ku salaysnay oo dhan way tuureen wixii wax anfacayay ayay tatwiiriyeen way istaycaabeen marka hore way kulmiyeen kadibna way tatwiiriyeen way horumariyeen sida awgeed xataa yurub markaynu dib ugu noqonno yurub inay technology hesho waxaa ka horreeya inay thaqaafadeedii beddeshay cultural revolution inuu ka dhacay waxaa maqashaan yurub iyadoo laga warramayo casuurtii caqlaaniyiinta ama casru tanwiir enlightenment waxa la yidhahdaa maqashaan enlightenment period ama renaissance-ku waqtiyaduu bilaabmay in technology la helo waxaa ka horreeyey in la naqdiyo culture-kii ay haysteen naqdi fiican bay ku sameeyeen laakiin mashkiladdu samo iyo khayrba wuu keenay ama khayr iyo sharba wuu keenay naqdigoodii waayo wuxuu waayey marjiciyadii rasmiga ahayd markay kitaabkoodii naqdiyeen diintoodii oo munxarif ahaydna ay soo bandhigeen inay inxiraaf uu ku jiro inay qaldantay in uu bini aadamku wax ku daray inuu kitaabkani ahayn sidii uu alle uga yimi inaanu ahayn taasi waxay sababtay markaa inay diintoodii oo dhan tuuraan ha tuurane laakiin caqliga saliimka wuxuu ahaa inaanay moodin diimahoo dhammi inuu kitaabkoodan qaldan yahay yurub may dhaafin kaljarkoodii iyo kaljarradii kale may daraasaynin maalan islaam may daraasaynin authenticity-ga kitaabka rabbulcaalamiin ka yimi qur-aanka may daraasaynin koodii bay ku toobaan koodii way tuureen xisi naqdiyana way la yimaadeen oo ah waxay haysteen inay naqdiyaan taasaa waxaa ka dhashay inay raacaan asaaliibtii muslimiintu tajriibiga ay raacayeen in kiniisadda laga xoroobo afkaartii kiniisadda in laga xoroobo aragtiyo badan oo khuraafo ah in laga xoroobo aqoontii dunida taallay in la soo tarjumo in la tatwiiriyo in la naqdiyo taasu ku bilaabmay idan umamku inay isbeddelaan waxa beddela umamku waa aqoon-yahanka waxa umamka beddela waa aqoon-yahanka laakiin waa markuu aqoon-yahanku kaydkiisa aqooneedna saxan yahay caqli kritigana uu wato wax naqdin kara u diyaar yahayna inuu wax tawjiihiyo oo wax isbeddel uu sameeyo walidaalika ayuha alaxiba waxaa tiin da'yar jaamacada ku jirta ama ka baxday dad raba aqoon kayd aqoomeed oo caalamka yaallay kaydka aqoontu cid gaari ma leh horta cid gaari ma leh markaan leeyahay maxaan uga jeedaa waxa weeyaan aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irthigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikhoo beenoo reer yurub ku dhex daray baa jirta oo ah European centric laga dhigay wax walba inuu yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badan oo yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa beenaha ugu waaweyn ee dunida la sheegay ka mid iminkana iyagaa naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaa ee dunida la sheegay inay ka mid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan laysu sheegaa inta badani waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nebi aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyey weeyaan laakiin yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama aan si kalena u tilmaamay xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen dhal ayay waxay dhaxal lahaayeen qoraal axadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka hayste ugu weyn dunida nooca ku saabsan si kastaba ha ahaato waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha
reer nebi aadam cid walba in bay ku darto griigu in buu leeyay chaynu in buu leeyay hindidu in bay leeday xadaara alislaamiya in aad weyn bay leeday xadaara algarbiya aljadiida in bay leeday welina aadanuhu sidii buu u sii kordhinayaa idan waa dhaxal aadamaha ka dhaxeeya waa dhaxal aadam wixii uu dhalo dhan ka dhaxeeya waxaynu u baahannahay markaa dhaxalka aadamaha ka dhaxeeya inaynan ka qadin waa kow inaynu kayd ka abuuri karno laba waxaynu u baahannahay inaynu yeelanno caqli wax xufi kara oo dhaxalka aadanuhu ka tegay saafi ma wada aha fiihi dakhan saafi ma wada aha wuxuu u baahan yahay caqligii shiili lahaa siiba qaybta art siiba qaybtaasi yacni qaybta scientifiga ahi waxaa laga yaabaa in badanoo ka mida qayb badanoo ka mida inay xaqaa'iqda u dhowday walidalik lagama yaabo inaad aragtaan wax badan oo ama natural scienceska ka mid ah ama mathematicska ka mid ah oo laga warramayo ninkii qoray wixii uu rumaysnaa lagama warramo waayo ma hadheeyo inta badan waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaa'iqda cilmiga ee noocaasiya maalan lagama yaabo maalan algorithm waa alkhawaarzimi nin la odhan jiray maxamed alkhawaarzimi baa soo saaray alkhawaarzimi magaciisii baa algoritmkani waa magaciisa laftiisii oo si xun loo isbeeliyey inuu muslim yahay iyo inuu masiixiye ka arki maysid xisaabta dhexdeeda aljabra markaad dhiganayso waa nin muslimaa soo saaray laakiin inuu masiixi iyo inuu muslim iyo aljabrada ka dhex arki maysid mathematical proof hadday hesho waa caynkaa inuu yahuudi soo saaray iyo inuu hindi soo saaray ka dhex arki kari maysid laakiin aqoomaha bini aadamku uu isku gumaysto ama isku hago waa aqoonta kale ee ku saabsan culture-ka oo dhan oo haddaynu culture-ka u qaadanno siday faransiiska iyo maxay ingiriisku u sharxaan oo ereygan culture culture markuu yahay afka jarmalka iyo ثaqaafadii jarmalka alxadaara kullahaa baa la yidhaahdaa qaybteeda maadiga ah iyo qaybteeda ثaqaafigaaba marka la isku daro culture bay iyagu isku yidhaahdaan laakiin markaad timaado faransiiska civilizationka civilization miyaa la yidhahaa faransiiska ma aqaani erey noocaasiya weeyaan marka la yimaado faransiiska oo ingiriiskuna ka sii dhambalmay civilizationka laba qaybood bay ka dhigaan oo qayb madaniya iyo qayb yani qayb ثaqaafiya iyo qayb material alxadaara almaadiya iyo ثaqaafa waxay leenahay markaas qaybta ثaqaafiga ah ee ah social scienceska ama siyaasad ha noqdo ama akhlaaq ha noqdo ama cilmi bulsheed waxaad doontaba noocu doonayaba ha ka noqdo ama fan ha noqdo ama wax allaaliya waxaa bini aadamka ku saabsan ee aan natural science ka ahayni waa sawiro muctaqadaadka bini aadamku uu kala rumaysan yahay tilmaamaya hadduu dhaqaale yahay hadduu siyaasad yahay hadduu cilmi bulsheed yahay dhammaanteed walidaalika markaad baranayso waxaad baranaysaa theories aragtiyo kala nooca aragti raasamaaliya aragti shuuciya aragti diiniya aragti philosophically waxaa ka soo jeeda waa madaaris school of thoughts kala nooca weeyaan waayo muctaqadaadku ku bini aadan bay ku salaysan tahay kaa waxaynu u baahanay inaynu yeelanno xis naqdiya xis garan kara maxaa sawaaba maxaanse sawaab ahayn maxaa khata ah maxaase fiican oo la qaadan karaa maxaa tajriba saxiixa ah maxaan tajriba saxiixa ahayn waxaynu u baahanay markaasi inaynu diinteenna si fiican u garan karno waxaan leenahay markaan soo koobo
weedhatan aqoon-yahanka aan rabno waa inuu noqdaa qof masdarka cilmiga saxiixa ah ee ima kitaabullaahi almaqru'a ama kitaabullaahi almanduura qof kayd ka haysta waa inuu noqdaa qofka wax naqdin kara kritika samayn kara waa inuu noqdaa qof ummadda tawjiihin kara oo cultural revolution samayn kara laakiin dhibtu waxay taagan tahay innaga markuu aqoon-yahankeennu gadaasha ka maro odayaasheenna iyo jiilkeennu rabnay inaynu beddello waxay dhibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoon-yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horu mariyo aqoon-yahan maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay goysaa suuqa marketka maxaan ka gooya haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo sultadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo 10 oday intay ku yimaadaan yidhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sultada jirtaa bajin karto baqagelin karto ama cultureka bulshadu ay leedahay ee xun cultureka san waa inuu ku baqageliya waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqageliya maaha laakiin cultureka liita uu ku baqagelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankaan rabnee wax beddelayay maaha sida ogeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon-yahan badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon-yahan badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jira uun jira aqoon-yahan badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka soomaali ahaan ka umma soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaariji ah bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahay dhib daakhiliyaynu leenno oo ah inaynu qabiil u qaybsannahay siyaasaddeennu waa qabiil mararka qaarkood waxaan is idhaahdaa axsaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna sooma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale ka soo wareegi lahaa waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma aha inuu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shakhsana qof daba soconno aynan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaanu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegana magac kale sheega markaa hadhow ha odhanin literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheego ha sheegan wax kale sheego nin reer hebel aan ahay iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adigu aqoon sheegatay aqoontu waa inay wax soo kordhisaa waa inay cultural revolution samaysaa waa in bulshada aan bedeli karnaa
taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil al-umma umamka si aad u gumayso si loo gumaysto waa in aqoon darro lagu hayaa umamka si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yaro taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddanka lagu soo rogay waxaan baa lagu soo rogay umamka si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqageliyaa haddaa saa yeeli weydaan briskaa laydinka jaraya waxaan baa laydinka jaraya hubka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwalilmaariqa baad ku biiraysaa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa uu dhistay oo ku talagalay inay hayaan say iyagu rabaan inay wax u sawiraan laakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaabaa ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahanay markaa taxadiyaadka khaarijiga ama challengeska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno challengeska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray oo xoog ku qabsan jiray imika iyo dubuun waa sida quraanjada ay hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartay laakiin xagee ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysaa haddaan iska gufaynindi bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo oo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada soomaaliyeed way burburtay culturally bay burburtay dowladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kastoo ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabadda ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminaar yar iyo capacity building baa laynoo wada sow capacitygeenu ma dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa la leeyahay capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna la inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dowladda hooska waxay yidhaahdaan waxaa laga yaabaa wasaaradaheennoo dhammi NGO-ya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeennoo dhan maca tujaarteenna maca waxeennoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma taqaaniin awrka dee xadhigga marka lagu xidho keenada la xidho ee loo faruur xidho waa la wadaa uun hadduu madaxa yaro gijiyana faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaad tiin da'yartii akademiga ahayd ee wax baranaysa ee jaamacaadka joogtay waxaan idinka rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaa xis naqdiya yeela xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna beddello bulshada dadka ugu badan ee beddeli karaana waa aqoon-yahan hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diin ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xune ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay hadday mukhadaraad tahay hadday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay waxa allaaliya waxa bulshada inay horu marto
kor u ruqaansata u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inuu isagu markaa noqdaa qof nadiifa ilaahay muxuu yidhi dadka ma samaha faraysaan idinkuna maxay samayn maysaan maxaa loogu gebagabeeyey afalaa tacqiluun maanka miyadan isticmaalayn baa ilaahay leeyahay aqoontu waa inay wax beddel samaysaa aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago tusaalaan ku siinaya dadka maanta dunida haga waxay isku dayayaan waxa kale ka kaalay xataa dhadhankeenna inay hagaan tviyada soomaad arag kijan laga soo bandhigo kijan iyo ku taallo saa wax loo kariyo inoo sheegaysa maadana wuxuu haystaan karsan aqoon ma jira yani waxaa la rabaa dhadhankeenna xataa in laga dhigo dhadhan iyo New York laga xukumo maradaynu qaadanaynay xad baad marisay bal masaajidka gal nin weynoo tukanayo dabadu muuqataad arkaysaa oo masalaad baa saxaysaa يعني والسروالك سيلا إنه قصة طلع إنه أقبل لي إنه نقاض إنه حنو بهنا إنه حرونه حر نمضو ما هب بقعة الدولة بنان وده فرد دولة ده حر بان والدولة هبلايا نلاقيها ما هتا حر نمضو هنا العقل جاكو حرية هي نلاش واحد أدور ربطين الثمين كريسه وحان دني كوجرين إنه تكتجي كرتو ولو عندك لا يبوفين يسوس آخرين يسوس waxaan ku soo koobayaa marka aqoon-yahanimo waan isku dayay inaan ku agwarwareego bal waxa ay sheegayso wax ka mid ah inaan tilmaamo waa kaa aynu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya toojka wuxuun baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay kayd aqoomeedna leh waxa uu sheegayaan ay ka runto noloshiisa ka muuqato inta haddaa heshaan adduunkanna magacba kaga tegaysaan iyo maamuus aakhirana waa liibaanaysaan waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoon-yahanka u ahaa waa waxay sameeyeen innaga waxaa ina baylihiyey dadkaynu aqoon-yahankaynu daba soconnay aqoon-yahankeeni meel cidlaa buu ina dhigay ka Soomaali ahaan waxa ina qaybiyey ina burburiyey xadka ina gaadhsiiyey waa aqoon-yahankeennii waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysay aqoon ku xoogsiya unbay noqotay ka ugu fiicani isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtar u lahayn aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fakaraysa adduunkeedna dhisaysa ayaynu u baahanay صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين